daawo talaajadan sir argagax leh ayaa ku qarsoon ma rumaysan doontid waxa laga helay dawladda Kuwait labada bishii 6aad 2018 waxa ka dhacday dhacdo argagax leh oo gilgishay guud ahaan dalka Kuwait kaliya ma ahan ee laba dawladood oo kale ayay saameysay dhacdadan nin u dhashay dalka Kuwait ayaa guri ka ijaartay qoys Lubnaaniyiin muddo kadib wax jawaab ah ayuu ka waayay qoyskan kiradiina waa ay bixidiideen ugu dambeyn ninkii guriga iska lahaa guriga ayuu soo aaday si uu kiradiisana uga soo qaato qoyskan waxa ku dhacayna uu u ogaado albaabka ayuu garaacay dhowr mar laakiin waa laga furi diiday laakiin maalintii uu albaabka furay ee uu guriga soo galay waxa uu arkay wax kale waxa uu arkay talaajadani ma ahan talaajad caadi ah waa talaajad xambaarsan sir argagax leh sirtaas oo ugu dambeyn sababtay inay laba dawladood oo waaweyn xiriirka isu jaraan dhacdadaas argagax leh ayaan muuqaalkeenan uga hadlaynaa laakiin daawade waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto siina share garayso si uu gaaro dhammaan dadka muslimiinta ee ay casharada badan oo dhacdadan ku jira u bartaan sidoo kale ha hilmaamin inaad page-ka follow dhahdo oo ku soo biirto bahweynta waayaha dunida waxaan ku soconnaa wadada aan ku gaari lahayn 100,000 codsi kale ayaan wataa saaxiibayaal YouTube channelkeena hatanka kuna hala gaarsiiyo ku soo dhawaada mar kale dhacdadeena maanta qof lagu magacaabo Naadir Casaaf waa nin ay dhalashadiisu tahay Lubnaani daadiisuna ay tahay 40 sano waxa uu guursaday haweeney lagu magacaabo Muna Xasuun oo u dhalatay dalka Syria daadeeduna ay tahay 37 sano waxa ay dhaleen laba caruur ah dalka Lubnaan ayay si nabadgelyo ah ku deganaayeen umuurahoodana caadi ayay u ahaayeen sanooyin ayay halkaas deganaayeen laakiin waxa ku soo dhacday fikrad ah inay u guuraan dalka Kuwait ugu dambeyn go'aankii waa ay qaateen waxa ay ka guureen dalka Lubnaan waxa ayna u guureen dalka Kuwait waxayna degeen gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Shacab Naadir waxa uu qoyskiisa u kureeyay guri waxa uu ahaa nin degan nolol qurux badan ayayna halkaas ku qaateen ilaa la soo gaaray sanadii 2015 xilligaas waxa ay yiraahdeen jawga ayaan bedelaynaa nolosheenana wax badan ayaan ka bedelaynaa Naadir iyo Muna go'aankaas ayay qaateen inta badan gurigooda waaba ay ka maqnaa jireen oo ay ka tagi jireen Muna markaas waxay u baahatay qof ka saacideeya hawsha guriga waxayna ka dalbatay saygeeda Naadir inuu u keeno shaqaale waxa ay tageen in badan oo kamid ah xafiisyada laga qorto shaqaalaha guriga ugu dambeyn waxa ay ka heleen gabadhan oo ay dhalashadeedu tahay Filibiin oo lagu magacaabo Juwana daadeeduna ay tahay 29 sano gabadhan waxa ay caan ku ahayd inay tahay qof ixtiraam badan oo aamin ah Kuwait ayay ka shaqaysan jirtay qoyskeeda oo Filibiin degan ayayna biili jirtay waxa ay kula heshiiyeen gabadhan inay maalinkii saacada un kamida u shaqayso mushaarkeedana ay bisha dhamaadkeeda siinayaan muddo kadib gabadhan guriga ayayba la soo degtay qoyska maxaa yeelay ayaga ayaa ka dalbaday inay si toos ah ugu shaqayso si ay uga caawiso xanaanaynta ilmahooda laakiin si kadis ah gaar ahaan bishii 11aad sanadii 2016 dhammaantood waa la waayay yacni Naadir Muna ilmahoodii iyo xitaa Juwana dhammaantoodba waa la waayay xitaa wax raad ah lagama hayo ninkii guriga lahaa qoyskan waa uu waayay teleefankoodii waa uu waayay markii uu guriga tagana cid ka furaysa male dhammaan xiriirkoodiina waa uu ka go'ay bil 2 bilood 3 bilood ilaa 4 bilood la soo gaaray kiradii guriga ma siinayaan awalna uma aysan hormarin fursad dheer ayuu siiyay laakiin markii uu wax jawaab ah waayay go'aan ayuu qaaday wuxuuna go'aansaday inuu booliiska gaarsiiyo arrintan maxaa yeelay wuxuu aaminsanaa qoyskan inay gudaha ku jiraan oo ay albaabka ku dhageysanayaan ayna kirada u diidan yihiin laakiin booliisku muhiimad ma aysan siin kiiskan jawaabtii uu xaqa u lahaa ayuuna muddo dheer ka sugay ninkan maxaa yeelay kiisaska noocan oo kale ah waa arrimo iska caadi ah booliiskuna amar maxkamadeed ayay ku aadeen muddo dheer ayuu sugay 1 sano ayaana ka soo wareegtay ugu dambeyn ninkii guriga iska lahaa maxkamadda ayuu ka soo idmaday inuu jabi karo albaabka gurigiisa markaasna waxaa ka soo wareegatay sanad iyo 4 bilood ugu dambeyn 6 bishii 2aad sanadii 2018 ninkan waxa uu ka haystay rag dhalinyaro ah oo koox ah waxauna aaday gurigii Naadir iyo Muna markii ay guriga tageen albaabka ayay garaaceen mar 2 mar ilaa 3 mar markii ay wax jawaab ah waayeen waxay isku dayeen inay gurigii furaan laakiin albaabkan si xoog ah ayaaba loo xiray waxayna go'aansadeen maadaama albaabkan fasax loo siiyay inay jabi karaan inay ugu dambeyn jabiyaan albaabka ayay jabiyeen ugu dambeynna gudaha ayay u galeen guriga ninkii guriga lahaa wuxuu bilaabay inuu guriga dhexdiisa wareego oo uu gurigii baaro bal inuu hal qof ka helo laakiin waxa uu ogaaday inuu gurigan cidla yahay oo uusan hal qof ku jirin sidoo kale waxa tusinaya gurigan in mar hore laga guuray boorka meel walba qariyay iyo caarcaarada meel walba guryaha ka dhisatay sidaas ayayna ku ogaadeen in gurigan xilli hore laga guuray guriga ayay dhex warwareegayeen si caadi ah wax ay la yaabaanna ma aysan arkin kaliya hal shay ma ninka guriga leh asagoo iska warwareegaya waxa uu hal mar ku baraarugay talaagada ama faranjiyeerku inuusan jikada oolin ee uu meel cidla oo halkaas oo kale iska yaalo waxa uu isweydiiyey talaajada maxaa banaanka keenay way u soo dhawaadeen dhammaantood dhanka talaagada ayayna si degan u soo aadeen mid kamid ah dhalinyaradii ayaa talaagada soo kor istaagay
istaagay albaabkii talaajada ayuu qabtay waana uu furay. markaas ayayna dhacday arinta naxdinta. waxa uu arkay wax aad uga nixiyay ninkan. talaajada waxaa ku dhex jiray mayd xilli hore ah oo aan la fahmayn qofka uu yahay. dhalinyaradii oo dhan aad ayay uga argagaxeen arintan. booliska ayayna waceen. booliska ayaa halkii imaaday, laakiin waa la waayay hal qof oo aqoonsado qofkan maydka. maxaa yeelay dhibanahan waxaa laga aqoonsan karay oo kaliya gacmaha iyo faraha. laakiin dad badan oo shacabka reer Kuwait ka mid ah marka ay fiiriyeen maydkan waxa ay sheegeen inay tahay gabadhii lagu magacaabi jiray Juwana, gabadhii shaqaalaha oo ahayd Naadir iyo Muna. dhaqaatiirtii baaray waxay sheegeen inay gabadhaani la kulantay garaac iyo jirdil aad u badan, jirkeeda oo dhanna wada dhaawac laga dhigay. wixii ugu dambeeyay ee ay sababsatay ama ay u geeriyootana ay tahay ama nabar qaybta dambe ee madaxa looga dhuftay. sidoo kale dhaqaatiirtu waxay sheegeen inay gabadhaani mayd tahay muddo sanad iyo 4 bilood. intaasna ay iyadoo mayd ah talaagadan ku dhex jirtay. cid lagala xisaabtamayna aysan jirin. cidda ugu horeyda oo lagu tuhmayo dilkaana waa Naadir iyo Muna. boolisku qoyskan cadaymahooda ayay raadiyeen, waxayna ogaadeen guud ahaanba dadkani inaysan joogin dalka Kuwait. waxayna dadkani ka safreen dalka Kuwait 7 bishii 11aad sanadii 2016. markaas kadib boolisku waxa ay dib u raaceen dadkan jinsiyadahooda iyo halka ay ka soo kala jeedaan. waxayna yiraahdeen dadkan ama waxay jiraan Lubnaan ama waxay jiraan Suuriya. xilligaas mas'uuliyiinta Kuwait ayaa la xiriireen mas'uuliyiinta Lubnaan. mas'uuliyiinta Lubnaanna baaritaan ayay bilaabeen, laakiin nasiib darro waa la waayay Muna iyo Naadir midna. mas'uuliyiinta Kuwait mar kale waxa ay la xiriireen mas'uuliyiinta Suuriya.